يهريال وعلى واسطة وقررنا وعلى واسطة ووربحين تيجي قطبيين برعاك قطبيين تيبقى البور برعاك قطبيين تي شركة برعاك قطبيين إذا ما قارن كرتو شركة برعانا إذا ما قارن كرتو بقر كوريسي سنة إذا ما قارن كرتو وبقر سوماليلاند وبقر قبلة بري وبقر أفريقيا مركا هذا الكيس اللي هو حيري كرو يا هذا الكيسكول كان هرجسل لو لها شرب كان هرجسل بس يا يدل وياه جديد حاس حافظ الله شيء أنا قاعد أنا سكول الله قاعد أنا قاعد إنه هالكيس هذا ما يقولين وحكلت شرته وعلى الحكومة موسى شنتي سنة لما سنة واحد كان مع حركة تدكيس حافظة بل صدق لك الله حرق وراح ودنا واحد هرمر الله شنتي سنة حرق بك كان مع ذنه صحافته يضدك يا أبو الندى يا أضياشه يقف لها مروستي شنتي سنة حرق بك كنا مع ذنه وبالحركة كان ودك هو الوجود دورته هرمر بالوجود دورته يا حرق كان معنا ولا ده حرق كان بس صدق بل حرق كان معنا بس كنا حرق ميل قاس مشي صحافته ميل قاس أم الله حرين كلام مشي تذكر تحرك الله فلسطين بالحرين كروي والله الله ورا حرق حلنا هو بهرمر كلام بس صدق الله بس ورا شافشنا كعكنا معنا بس صدق سنة يا شافشنا كعكنا معنا أم ده وكاله أم ده كدرته ولا وشقيه وشر الله فرسه حلقة حل دونه حرق وأرن معها والله الله والله عباريننا لما أقبلنا هذه الحرية هذه كمان سكول قال لما رهري كرو شركة برعلمة تشوتشي كرو وعلى حريته هلو سيداي صحافة حريته هلو سيداي وصحافة دي تدك بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وحن باق وقدرنا مدحوينها جمهورية الصوماليلاند موسى بيحي عبدي مدن المدحويني ما أنت باق يجا سواء كسر درنا برعو حكومة هي حرقة تيفير أريال يهريال مدن المدحويني waxaanu aaminsanahay hadaan shacabka reer Burcaan nahay in tahay madaxweyne isku kalsoon marka dadka wax xidhaya waa dadka hooseeya dadkaasuna sharaftaada ayay wax yeelayaan iyo ta xukuumadda dalkeenu waa dal dimuqraadi ah xorriyatul qowlkana dastuurka Soomaaliland baa damaanad qaaday mudane madaxweyne waxaanu ku leenahay xarigaas lagula kacayo TV-yada iyo saxaafadda madaxa bannaan iyadoo institution-ka qaranka ku jira saxaafadda madaxa bannaani waa meel ka dhac marka waxa weeyaan dadka xidhaya saxaafadda ee xukuumaddaada ceebta u soo jiidaya waxaanu kaa codsanaynaa inaad xukuumaddaada ka saarto xorriyadoodana aad u soo celiso labada TV abay oo ay ku kalaheen ciidamadii qaranku ama ciidamadii RRU ee loogu talagalay argixisada inay lagula dagaalamay rabshadaha runhaantii waa nasiib darro iyadoo xorriyatul qowlka uu marayo halkii ugu hooseysay aanu ka warhayno intii ay xukuumaddan kulmiyahaysay inay xidhay warkiisyo TV-yo iska daaya ay xidhay dad barahooda ku soo qoray aragtidooda runhaantii haddaan aragtida bulshada la cabirinna dawladnimo iyo system dimuqraadiyeed midna jiri maayo waxaanu aad iyo aad u cambaaraynaynaa haddaanu nahay xisbiga waddani ciqaabtan iyo caburintan ka jirta dalka oo aynu ognahay in aan cid ka hadlaysa iyo cid u danqanaysa midna aan jirin TV-yadu iyo saxaafaddu waxay soo gudbiyaan dareenka dadka waxay u dhaxeeyaan xukuumadaha iyo bulshada waxaanu ka warhaynaa xuquuqul insaanku in ay meesha kaga taalo saxaafaddu Soomaaliland xuquuqul insaankeedii iyo hay'adeedii loogu talagalay inay madax bannaanaato waxaanu la soconnaa inay la shaqaysato xukuumadda iyo ciidanka qaranka inay la shaqaysato oo ahayd maanta inay ka hadasho arrintan dhacaysa iyo caburintan iyo cagajugleyntan waxa kale oo aan cambaarin weyn u soo jeedinaynaa xukuumadda sida xaqdarrada ah ku haysata gudoomiyihii garabka dhalinyarada xisbiga waddani oo isagoo qudhiisu page-kiisa u gaarka ee Facebook-ga aragtidiisa ku soo cabiray isagoo aan cidna waxna u geysan cidna wax yeelin imikana ku jira saldhigga jeelka isagoo aan wax allaaliya wax lagu soo eedeeyay iyo wax lagu haystaa midna aanu jirin haddii ay saa u sii socdaan arrimuhu waxaan filaynaa xukuumadda kulmiye intii dalka haysay hoos u dhac weyn baa dhinac kasta ku yimi xaggii dimuqraadiyadda iyo wada socodka waxa kaloo ku yimi xaggii dhaqaalaha hoos dhac baa ku yimi waxa ku yimi xaggii isdhexgalka bulshada waxa ku yimi hoos u dhac
oo aynu ognahay in jabhada ay ka abuurmeen dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waxaasoo dhan waxa keenaysa waa system xumaan filayaa waxaan leenahay labadan TV ee saaka lagu kalahay ee ciidamadu albaabada ay u laabeen in laga daayo caburinta oo haddii xal la doonayo dee si caadiyo oo wada hadal ah waxay xukuumaddu diidan tahay dee inay ula hadasho inaanay ahayn inay muraayadaha ka jebiso waxaan leeyahay kamaradaha ka jebiso in ciidamo argagax geliya dadka dusha lagaga keeno run ahaantii dee waa aad baan u cambaaranaynaa arrinkaa